ku soo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification-kana furo siday kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. Some pronunciation rules waa waxoogaa ku dhawaaqitaanka shuruucdiisa ama shuruucda ku dhawaaqitaanka xagga dambe ka soo macnaysa ruleska dad ka macnayso. Some pronunciation rules waxoogaa ku dhawaaqitaanka shuruucda ku dhawaaqitaanka pronunciation waa ku dhawaaqitaan. waxaan qaadan doonaa tusaale koobaad how y is pronounced in English in an English word. How y sida y is pronounced loogu dhawaaqo in an English word markay ku jirto jumlad erey Ingiriisiya see loogu dhawaaqa y marka dhowr nooc baa jira y loogu dhawaaqo. Y waa alifbeetada xurufta mid kamid ah marka dhowr nooc baa lagu dhawaaqaa insha Allah marka dhowr kala nooc fahmi doonaa. sharciga koobaad rabnaan maanta qaadano xawiyaan sida y loogu dhawaaqo. How y is pronounced in an English word. marka haddii aynu soo adeegno y is pronounced waxa loogu dhawaaqaa either as a or e. y mar y waa xarafka y is pronounced waxa loogu dhawaaqaa either midkood as sida waxa loogu dhawaaqaa labada midkood marna waxa loogu dhawaaqaa baa looga jeedaa a marna e baa loogu dhawaaqaa ama ama e ba dheh. y is pronounced waxa loogu dhawaaqaa either as labadan midkood baa lagu dhawaaqaa labadan midkood baa lagu dhawaaqaa wixii labadan a baa lagu dhawaaqaa ama e. aan tusaalaha eegno a baan ku bilaabaynaa. A ugu horeyn inaan one syllable markay tahay hal laxan ina syllable word markay tahay kelmad hal laxan ka kooban ama hal dhawaaq sameynaysa y waxa loogu dhawaaqaa y is pronounced waxa loogu dhawaaqaa as a baa loogu dhawaaqaa saasa loogu dhawaaqaa. sidan hadda haddaan eegno tusaalahan eg waa tusaalihii my, buy, fly, shy, try, cry iyo sky. markay hal laxan sameynayso ereygu waxaa loogu dhawaaqayaa y baa lagu dhawaaqayaa sky I baa lagu dhawaaqayaa I. b oo qodobkan labaad faqradiisa labaad y waxa loogu dhawaaqayaa inaad two syllable word markay ta kelmad sameynaysa laba laxan. syllable waa laxan weeyaan ama laba dhawaaq. y waxa loogu dhawaaqaa y is pronounced waxa loogu dhawaaqaa sida as sida a baa lagu dhawaaqaa e ama e baa lagu dhawaaqaa labadaas hadba saa tiraado. eg tusaalaha haddii aanu fahanno party waa xaflad. funny e baa lagu dhawaaqayaa maaragta marka funny waa wax shidan ama fiican oo kale. turkey waa turkey. happy waa farxadii weeyaan. cherry waa faraxsanaantii weeyaan. tini waa dhuubnaantii. buni waa bunigii. city waa caasimadii. babyna waa cunugii yaraa ama wiilkii yaraa weeyaan. baby waa wiilkii yaraa. xaggan waxaan kusoo qaadanay sida y loogu dhawaaqo. haddii aynu ku soo cayno ugu horeyn y waxaa loogu dhawaaqaa mid ama waxaa loogu dhawaaqaa i waa lagu dhawaaqaa oo ah kan dambe ama rule kan dambe barna waxaa loogu dhawaaqaa y waxaa loogu dhawaaqaa y oo my oo kala my I baa lagu dhawaaqaa I ama i waa lagu dhawaaqaa. tusaalaha ruleka labaad baan ka wadaa. ruleka labaad sharciga labaad how c is pronounced sida c loogu dhawaaqo in an English word markay ku jirto erey Ingiriisiya. c waxa loogu dhawaaqaa c is pronounced c waxa loogu dhawaaqaa either midkood as sida s baa loogu dhawaaqaa ama k baa loogu dhawaaqaa. c is pronounced either s or k. c waxa loogu dhawaaqaa labada midkood. c xarafka c ama alifbeetiga c waxaa loogu dhawaaqaa labada midkood.
labadan baa lagu dhawaaqaa s baa lagu dhawaaqaa ama k tusaalahan ku fahamno dan soo qaadano markay ku jirto watan c weeyaan city oo kala city s baa lagu dhawaaqay markaa country waa wadankii weeyaan ka baa lagu dhawaaqay ama k labada saad buu taqaano country k baa lagu dhawaaqay waad aragtaa waxa marka waxa lagu dhawaaqayaa markana k baa lagu dhawaaqay labadan baa mid lagu dhawaaqayaa ama s baa lagu dhawaaqayaa ama k ayaa lagu dhawaaqayaa country waa wadan circle waa goobo c baa lagu dhawaaqay markaana circle waa goobo haddii aynu sii sharaxno ka koobaad 1c flowed by e markay c raacdo e xarafka e markay c raacdo c markay raacdo e or y ama ay raacdo xarafka y it is pronounced waxa lagu dhawaaqaa s marka wuxuu ku sharaxayaa xagan hore haddii c xarafka c ay raacdo e ama y waxa lagu dhawaaqayaa s sida cent waa centigii weeyaan cell waa unugii weeyaan century waa centerka ama suuqa weeyaan ice-na waa barafkii weeyaan ice waa barafkii ice waa barafkii cycle waa baaskiiladii cyclone waa baaskiilka cyprusna waa curiye weeyaan cyprus marka c markay raacdo e ama y waxa lagu dhawaaqayaa s haddii aan usoo noqono kan labaad 1c marka c is flowed ay raacdo markay c raacdo o xarafka o ama u ama a saddexda xaraf markay c raacdana it is pronounced waxa lagu dhawaaqaa k baa lagu dhawaaqaa haddii c xarafka c ay raacdo o ama u ama a waxa is pronounced waxa lagu dhawaaqaa k baa lagu dhawaaqaa sida country waa wadankii cool waa qabowgii cab waa koobkii cat waa jaritaankii can waa awooditaankii catna waa bisadii cab waa taxiga ayaa la yidhaahdaa cabalna waa lamaane cabal waa lamaane computerna waa computerkii weeyaan arday baan ahayo oo waxii wadankan ahayo